waxaanu maanta soo gaarnay magaalada Maqale oo magaalo madaxda deegaanka Tigray ee wadanka Ethiopia. gobolka Tigray waxa uu ku yaalaa dhinaca waqooyi ee buuraleyda ee wadanka Ethiopia. dadna magaalada Maqale ilaa 60 kilomitir baan haddana uga soo baxnay dhinaca waqooyiga. waxaan goordhoweyd soo gaarnay goobtan oo ah halkii ugu horeysay ee asxaabtu ay u soo haajireen waqtigu markuu ahaa 560 sanadood kadib dhalashadii Nabi Ciise. markii Nabi Maxamed iyo dadkii taabacsanaa ee asxaabta ahaa ay u adkeysan waayeen culayskii faraha badnaa ee kaga imanayay Qurayshtii bariga camaleeynaysay ee xukunka ku haysatay magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama ayaa nabigu asxaabtii qaar kamida waxa uu faray inay u haajiraan dhulka xabashida. deedna deegaankan imikaanu joogno waxa ka arrimin jiray bariga oo ka talin jiray boqorkii Nagaas ama Najashi sida qofba uu yaqaano. Ethiopia-ku waxay u yaqaanaan Nagaas, af Carbeedkana waxa loo yaqaanaa Nagashi. boqorkaasa Nabi Maxamed nabadgeliyo naxariis korkiisa ahaatee asxaabtii uu faray inay magan galaan oo halkan ay u soo haajiraan. waxa uu sheegay in boqorka agtiisa nabadgelyo ay ku helayaan iyadoo boqortooyadii halkan ka jirtay waa dhulka maanta loo yaqaano Tigray iyo Eritrea ee boqor Nagashi uu ka talin jiray ay ahayd boqortooyo Masiixiya ama Kristana ayaa haddana asxaabtii halkan ay ku nabad galeen. 12 asxaabta kamid ahaa oo badankoodu rag ahaa dumarna ay ku jireen ayaa goobtan yimid. dhammaantood waxay ku aasan yihiin mawlaca iga dambeeya oo boqor Nagashi laftiisuna uu ku aasan yahay. goobtan ayaa waxa lagu tilmaamaa inay tahay halkii ugu horeysay ee muslimiintu ay u haajiraan kahor intii aanay muslimiintu ka haajirin magaalada Makka ee aanay u haajirin magaalada barakaysan ee Madiina ayay halkan u soo haajireen oo ay ku nabad galeen. waxaana weeye goobtii ugu horeysay diinta Islaamku ay ka soo gashay qaaradda Afrika sida taariikhda ku xusan. haddaba bal goobtan aynu eegaynaa iyo asxaabta ku aasan iyo taariikhda ay leedahay. dhismayaasha halkan ku yaalla dib baa loo casriyeeyey waxaana halkan idinka muuqda xabaalo fara badan oo cusub oo Ilaahay ha u naxariistay dadka ku aasan dhawaanaha lagu aasay. tiirarka halkan ka muuqda marka meesha la soo gelayo wadanka Turkiga lagu soo sameeyay sida la sheegay waxaana loogu talagalay in asxaabi walba magaciisa lagu qoro asxaabiyiintii halkan u soo haajiray halkanna ku aasan. laakiin wali may dhamaanin hawshoodu oo magacyadii kuma qorna laakiin tiir waliba waxa uu taagan yahay mid kamid ah asxaabiyiintii halkan u soo haajiray. dad fara badan baa halkan soo booqda oo soo siyaarta oo ka yimaada wadanka Ethiopia iyo meelo fara badan oo kale oo caalamka ah. halkan waxaanu kula kulannay nin af Soomaali ku hadla. wariyaa iska waran. alxamdulillah soo ma wanaagsaneed adigu ma halkan aad ka timid markii hore. wallahi xagga baan ku dhalay. halkeed ku dhalatay. xaggan baan ku dhalay. ma sha Allah way. laakiin waxaan ku weynaa Djibouti. Djibouti hay af Soomaaliga xageed ku baratay markaa. Djibouti baan ku bartay. Djibouti muddo intee lag baad ku noolayd. wallahi door 20 sano. door 20 sano af Soomaaliga aad buu fiican yahay. oo imika halkan aad joogtaa miya. xaggan waa Iran joogay. hay hooyadii xaaskayga ma xagga bas ka joogaan. hooyo iyo xaaskii iyo dadkii oo dhan halkan kula joogaan. dad intee lag ba halkan soo booqda. والله ده فرق بدن باي مالين باي مادام مالين ده فرق بدن باي مادام والله قالها انت قالها حتى واي مادام مع ضد قالها باي ماده ان مقالة نجاشي ضد انت لك بكون نور والله مسلم كدور بقول لك كنتم انت قالت انه دور صدح بقول بنقونين واي مسيحيين تي مسلم كو ذا نول يهلكن كل ها ضد كيدي soo booqda halkee ka yimaadaan والله مل كلا دوان باي مادام هاي
dadka Ethiopia iyo hadda Africa u ku yimaadeen xagan هاي dad Soomaaliya ma ku aragtaa halkan oo idinku yimaadaan هذا inaan dad fara badan baan la kulmay xagan oo Soomaaliya waa Soomaaliya way ma Ethiopia ka yimaadaan mise meel kale wallahi Hargeysa iyo Muqdisho ها dheer Djibouti ها يا لا ugaadeen baa yimaadeen هاي ما شاء الله dee markaa dadka adaa u turjuma miyaa ani waa yar baan u jirmay dad kale dad fara badan af Carabi oo garanayaan هاي Carabi baa la kulmay odii taariikh aad iyo aad u fac weyn ayaa halkan ku duugan oo ka turjumaysa hijradii ugu horeysay ee muslimka markaa sheekha ugu weyn dadka maanta halkan jooga ayaa nooga warrami doona taariikhda halkan ku duugan taariikhdii boqorkuu lahaa iyo asxaabtii halkan timiba intaan gudaha la gelin kabaa halkana lagu bixinayaa sheekhana markaa taariikhda halkan ku duugan nooga warramaya شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا كيف الحال؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. أنتم من أهل الصومال؟ أنا أهل الصومال. نحن أيوه. من أهل الحبشة من أهل النجاش. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. بتحية الإسلام. اسمي عبد السلام. اسمي شيخ أدم محمد الإمام النجاش. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. ما دام الشيخ أنا في إنجليزي كهادلين أنا جانا عربي ده اللي يجوا ناكسين هي إنجنير أحمد ملكيلا يونيفرسال أي يجي ترجمية sheekh waxaad weydiisaa hadda markii ay muslimiintu halkan u soo haajireen taariikhda goormay ahayd متى هاجر المسلمون إلى هذه المنطقة؟ هذا أول المهاجرين يعني قبل ما يهاجر من مكة إلى المدينة هاجروا إلى أرض الحبشة. أنت أصحابت مكة كهاجرين أو مدينة وهاجرين كو وحي صبحن أم بحن دلك حبشة. إمس قف بها ينكده كم كان عدد المهاجرين؟ عدد المهاجرين أول المهاجرين 11 رجلا أو 4 و5 نسوة. وحي أهايين كوي 8 صحابة. كم الرجال وكم النساء؟ 11 رجلا 4 نسوة أو 5 يقول في المكتوبات. يعني 15. 16. 16 لحي 8 أهايين كوي 8 رقة أفر الدمرة. waxaad ku tiraa taariikhda sida lagu hayo xageebay markii hore ka soo degeen asxaabtu markii ay ka yimaadeen wadanka maanta loo yaqaan Saudi Arabia من أي منطقة وصلوا في البداية؟ أولا يعني خرجوا متسللا من جدة استأجروا بنصف الدينار نصف سفينة التجارة هاجروا من البحر الأحمر إلى أكسوم كانت ملكته أكسوم النجاش إلى استقبلهم أول المهاجرين السيد عثمان بن عفان رقية بنت رسول الله كانت بنت الرسول الأول المهاجرين. waxay ka soo si dhow mashaana uga soo baxeen Jidda kadib waxay soo qaateen markab ay qaar tijaarta lahaayeen waxayna soo gaareen magaalo la dhaho Aksum. هذه أكسوم في الحبشة؟ أيوة ملكة ملوكة كانت من زمان. waxayna hoos imaan jirtay boqortooyada Najaash. كوي واحد صوام بحين وحين صحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن معه رقية بنت الرسول جوزته حاسكي رقية قبل النبي عليه الصلاة والسلام. marka xabaalaha imika halka ka muuqda ma kuwii asxaabta ku dheh هل هذه القبور قبور الصحابة أم هي أم هذا العلماء الحبشة الشيخ عمر أبرار بلغة العرب يترجم كانت بلغة الأمحاريك بالتقرينية أن تارك النجاش خرج بالمكتوبات الشيخ عمر أبرار من الحبشة العلماء. وحكم هي علماء حبشة هل كان كتوغن لكن قار وحاجروا الصحابة بعضهم قبور الصحابة في موجودين نمشي يعني نوري. xabaalaha imika halkan ka muuqda sida sheekhu uu sheegay waxa weeye culimadii xabashida ahayd ama deegaankan ka soo jeeday oo qaarkood ay luqadaha amxaariga iyo tigrania ay u turjumeen quraanka laakiin asxaabtii gudahay ku aasan yihiin oo xabaalahoodu ay yihiin bal hadda gudahaanu gelaynaa imika ومن أيضا هنا من هذا من المشايخ أولياء الحبشيين وهذا بنى درح
قبل 60 سنة محمد عبده هذا والدته في الوسط، وهذا بنى هذا الدرع أولا قبل التعمير الأتراك من زمان. هيلة سلاسي بناها حج محمد عبده، هذا وفاته قبره هنا، هذا والدته في الوسط. qaar ka mid ah culummada xabashida ay ka mid yihiin sheekh maxamed cabdo iyo hooyadiisa oo ku lug lahaa in meeshaan la dhiso. متى تم بناء هذا المكان؟ هذا قبل 60 سنة بناها محمد عبده. الآن التعمير التركية 5 سنوات ماسكن، ما استلمه عدو. التعمير ترون الحوش نعم. والقلم، وهذه من الأتراك. wuxuu leeyahay 60 sano ka hor maxamed cabdo sheekha halkan ku aasan bilaabay in wax laga qabto dhismaha, laakiin 5 sano ugu dambeeyay turkida ayaa gacanta ku haya. markaa turkida dib u dhistay halkan. turkida dib u dhistay. way bal hadda gudahaynu gelaynaa. culimmada kale magaca leh intaynan asxaabta qubuurahooda u gudbin, culimmada kale magaca leh halkan ku aasan, halkan oo kale ayaa ku aasan. من في هذا المبنى؟ هذا عدي، ولكن هذا أول نبتدي. موسى بن الحارث من المهاجرين من الصحابة. waxaa ku duugan halkan qabriga Muuse ibn Xariis oo saxaabada ka mid ah muhaajiriinta. وهذا شريف عبد الله من المهاجرين الصحابي. وكان qabrigana waa Shariif Abdallah oo muhaajiriinta saxaabada ka mid ah. داخل الدريح عدي بن ندلة أول مورث في الإسلام. أولا مورث الإرث ابتدت عنه. أوكي، عدي بن ندلة هو من الصحابة أيضا. أيوة من المهاجرين. عدي بن ندلة أيا ضريحة ندو جيدد كدوغن oo saxaabada ka mid ah asagana. goobta waxaa soo booqda dad fara badan oo kumanaan iyo kumanaan qof sanad walba oo daafaha adduunyada ka kala yimaada. dadkaasi oo isugu jira dad muslina iyo dad aan muslin ahayn, waxay halkan u yimaadaan si ay u eegaan ama wax uga bartaan taariikhda qadiimka goobtan ku duugan. sheekh waxaad weydiisaa injineer axmed, imise qof baa sanadkii soo booqda halkan؟ هل كم عدد الزوار الذي يأتون إلى زيارة هذا المكان في السنة؟ الآن يتعرف في العاشوراء أكثر من 40,000 أكثر يأتون ويمشي ويجلس ويمشي. أكثر حوالي من 50,000 يأتوا في العاشوراء. والثاني الخارج السياحين من الجرمن، من إيطاليا، من فرنسا، في وقتات مد ما كل يعني ما أعلنوا للناس. الآن يعتلن يأتون الناس شوي شوي. نمبر صحة ما هنا، لكن وحود هاي ضلوا والبلوغ ماذا وقت عاشوراء إلا كنتم أفرتن كن أي كاران ضدك صوبه. أصحابته مركي أكسوم أي كسر دجين ما حيكون دورتين إنه هل كان دجان. عندما أتى الصحابة إلى أكسوم لماذا اختاروا هذا المكان؟ حوالي من 10 سنوات جلسوا في الأرض الحبشة، يحولوا كانوا بعد وفاتهم كانت في هذا المكان. يعني هم لم يأتوا على طول إلى منطقة هذه المنطقة؟ لا، ما أتوا، وصلوا عند المرتين إلى أكسوم. ayaga aksum ay ku soo degtay, laakiin meeshan waa meeshii oo saxaabadii lagu aasay qabriyadoodii, laakiin markay imaadeen dhowr meel ay soo degeen. xabaashan iminkaanu dul taagannahay, sheekhu wuxuu sheegay in sheekh caana sheekh cabdiraxmaan jabarji inuu halkan ku aasan yahay. taariikhdiisaan deedna wax ka weydiinaya. حدثنا عن الشيخ عبد الرحمن جبرتي عن تاريخه. من العلماء معروف المؤرخ. نعم. وحكمت أها علماء وحنا تاريخها يعني تاريخ الإسلام كي وحاسوك كل هذا. gudahan imika galaynaa waxaana ku aasan gudaha boqor najaashi lafahantiisii iyo asxaabtii halkan u soo haajirtay badankooda. laakiin haddii tilmaan yaraan idinka siiya deegaanka goobtani ay ku taallo, goobtani waxay ku taallaa buur dusheed, waxaana ku wareegsan dhul buuralaya oo si fiican aad uga arki karayso dhulka kaa hooseeya. gudahan imika galaynaa. markaad gudaha soo gasho waxaad dareemaysaa in jawi aad u degani oo halkan ka jiro.
boqor najaashi iyo asxaabtii halkan usoo haajirtay qabuurahoodii baa halkan ku yaala laakiin dhismahan sidii sheekhu uu sheegay dib baa loo dhisay waxaana ka muuqata farshaxankii ama dhismihii turkiga marka xabaaluhu siday kala yihiin ku dhaaxmay كيف هذه القبور يعني كم من الصحابة والنجاش والمهاجرين 12 مع النجاش 13 الصحابي ودفين في هذا المكان. هل كان waxaa ku duugan boqorka Najaash iyo 12 saxaabada kamid ah boqor Najaash isagu masiixi buu ahaa Soomaaliya intii aanay asxaabta halkan iman ka hor هل كان النجاشي قبل أن يأتوا الصحابة مسيحي؟ كان من أهل الكتاب يعني قبل ما يبرز يهودا ماسكا سألوا عن العيسى والرسول لا فرق لهم بين الرسول وبين العيسى قال وحود هاي أهل الكتاب وكمد مركا لو يدينا عيسى نبي عيسى نبي محمد وحود هاي وأنبياء الله وحفر قود هاي مالها يعني وآمن سنة إنه نبي محمد ما دونه marka waa sababta uu badbaadiyay asxaabtii halkan u soo haajirtay nabiga laftiisuna nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waa asxaabta u farayna halkan u soo cararaan miya naxariistaas uu ku ogaa miya nabigu هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن النجاشي ملك عادل؟ نعم الرسول والفرس والروم كان اختار إلى أرض الحبشة فيها ملك العادل الملك الصالح لا يظلم ولا يزلم عنده عاد قال أرسلهم كما رأها استقبلهم وأكرمهم وسيدو النبي صلى الله عليه وسلم مركو صدر الصحابة وحوقا إنه ملك بقر عادل هو جوه ودولكيس ضد الوجود المنين ياسق عن ضد المنين شيخ وحشاقي إن قبورها هلكن كوياله بقر نجاشي يا أصحاب تبع ودها كقاضيه وأنا مرة نرجعها أنا تركيا سنة مرة أول كان من أبيض من محمد عبده الآن في الأسود التركي مركي محمد عبده سنة وهو مرمر مسمار أو عطانا تركيا ويحيك اللي مرمر كان نوعنا القباء كله من محمد عبده مولعا تركيا ديبو عسبونيسيي لكن شيخ وحو شاقين مدو 60 سنوات laga joogo sheekh loo oran jiray maxamed cabdo oo kamid ahaa ragga maalqabeennada ee waaweyn deegaankan uu dhisay qudbigan laakiin farshaxanka ka muuqda waxaad moodaa in dib loo cusboonaysiiyey aad iyo aad buu qurux badan yahay marka waxaad tidhaahdaa halkan marka diinta islaamka la eego muhiimada intee lag bay leedahay هذه المنطقة هل لها أهمية للإسلام والمسلمين؟ هذه بالإسلام مش يهتموا ولكن في اللسان بس بالمعاملات بتركيا شوية عملت بس ثاني ما قام لها عن تاريخها ما مسك حتى قبل سنتين أتى من السنغال من محمد سعيد التجاني ولكن وقفت شوية تركيا الدولة العالم الإسلامي ما قام لهذا المكان قال أتى يا بالبيت المقدس أتى متى يزورون النجاش بعد ما وصل الحج بعد الحج ما يوصل قبل البلاد وصل هنا لماذا أنت ترى كيف قالوا وأنا أعلن على العلم الإسلامي التجارة يفتحوا يدهم والأهل الصوفيين يفتحوا كتابهم لكن قامت شوية تركيا عن العمل النجاش عمله للرسول ما حد رد لهم قال wuxuu dhahay sida dawladda Turkiga u tixgelisay meeshan ahamiyada uu leeyahay uma tixgelin dalalka islaamka oo kale oo carabaha haday noqdaan muslimiinta oo kale waa doctor dhahay meeshan oo kale waa mataqaana taariikhda islaamka wax weyn ku leedahay waxaan codsanaynaa qof walba muslim ah ee dadka dawladaha islaamka inay ahamiyad gaar siiyaan halkan waxa kale oo aan jeclahay inaan sheekha weydiiyay in kadib markii halkan ay u soo haajireen 16 ka asxaabi ay jireen asxaab kale oo iyaguna halkan kaga daba yimi هل لما هاجر الصحابة 16 إلى هذه المنطقة بعدهم أتى صحابة آخرون أم لا ما أتوا بعد وفاتي بعدهم رجعوا إلى مكة إلى المدينة
الوفو هنا بس ثاني مكانات في المكان العفار يقول يعني إلى بحر الأحمر جهة قريب يأتوا ويرجعوا. في هنا بقوا 15 بس 5 نسوة 10 رجال. halkan waxaa ku haray 5 dumar saxaabada ka mid ah iyo 11 rag ah laakiin wax dambe maysan imaanin deegaanka qaar baa noqday qaarkii dhintayna halkan lagu aasay marka qaaradda Afrika ay timaado ma la oran karaa marka diinta islaamku halkan ay ka soo gashay qaaradda Afrika imika aynu taaganay هل ممكن القول أن الإسلام أتى إلى أفريقيا عن طريق الحبشة؟ قبل يستقدم مكة بس بعد مكة دولة عن الإسيا عن الأفريقيا عن قدمت أرض الحبشة استقبل مكة أنا وهو رئيسي ما دام دينتي كسودتي وحده كرنا dadka ugu horeeyo oo saxaabada qaabilay oo soo haajiray waa halkan. السلام عليكم. أنت من فين؟ تركيا. تركيا. نعم. أنا من صومال. sidaa arkaysaan ayaa dadka muslimiintii meel kastoo ay ka yimaadaan ay goobtan u soo booqdaan kooxdan imika arkaysayne sii galaysayna waxay ka yimaadeen waddanka Turkiga qof kastoo doonaya inuu goobtan soo booqdo si hawl yar bay ugu suurtagelaysaa waxa la sheegay in 6 duulimaad oo Ethiopian Airlines ay maalin walba ka soo baxaan magaalada Addis Ababa oo magaalada Maqalla ay yimaadaan jidka Maqalla ka yimaada magaalada Nagaashi yimaadaana waa jid laamiya oo aad iyo aad u wanaagsan marka si sahlan ayaa cidii danaynaysa goobtan ay u soo booqan kartaa muhiimadeeda ugu weynina waxa weeye goobtan inay tahay halkii ugu horeysay ee diinta islaamku qaaradda Afrika ay ka soo gashay iyo halkii ugu horeysay ee muslimiintu intii aanay u haajirin magaalada barakaysan ee Madiina ay u soo haajireen oo halkan ay ahayd hijradii ugu horeysay ee muslimiintu ay ku nabad galeen ee ay u soo haajireen booqashadeedii halkan intaasay ku dhan tahay inta barnaamijkan oo kale aynu dib ugu kulmayno waa Cabdisalaan Herari oo Nagaashi idinka salaamaya nabadgelyo.